cunto la'aan, caafimaad darro, carruurta oo aan loo hayn qorshe ay wax ku bartaan iyo arrimo bini'aadanimo oo aad u liita. intaasi waxa ay ka mid noqdeen habnooleedka caadiga ah ee dadka kaamkan ku nool, balse maanta waxaynu ka cudurdaaranaynaa in xaqiiqooyinkaasi jira sheeko ka duwan aan idinla wadaagayno. halkan waa xero barakac oo ku taal magaalada Garowe, gaar ahaan marka looga sii baxayo dhinaceeda bari, waxaana ku nool qoysas danyar ah oo inta badan 10 sano ka hor koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay sabab la xiriira nabadgelyo darro soo wajahday. ilaahay ka suku waxaan iska sugaynaa dawlad qaran oo dhalata ee Soomaaliya baan soo sugaynay sida dokumentiyada ka arkaysid taariikhdii aan soo maray halganka aan soo maray. sidoo kale waxaa ku nool kaamkan Kabtan Jeelle Qaasim Maxamed oo ahaa xogayihii guud ee ugu sarreeyay xisbigii hanti wadaaga kacaanka ummadda Soomaaliyeed ee degmada Garowe xilligii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii militariga ee Generaal Maxamed Siyaad Barre. ninkan oo 22 sano ee kacaanka ka mid ahaa xisbigii hanti wadaaga iyo garbihii midig ee Allaha janneeyo Jaalle Siyaad ayaa sanadkii 1984 loo soo bedelay deegaanadii lagu naynaasi jiray Gaariwa, balse hadda uu ka arrimiyo maamulka Puntland. gaar ahaana waxaa xogayo looga dhigay xilligaasi degmada Burtile ee gobolka Nugaal oo sanadkaas maamul degmo la siiyay. taariikhdaas iyo nolosha dhabta ah ee mas'uulkan hadda barakacaha inta aynaan u gudagelin horta waa kuma Jeelle. anigu magacaygu waxaa la yiraahdaa Jeelle Qaasim Maxamed Xasan. waxaan ku dhashay gobolka Bakool Xudur oo magaalo madaxdiisii ah. waxaan dhashay 1956 sidaa awgeed dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku dhamaystay gobolka Bakool Xudur. wixii ka dambeeyay ciidanka hooga dalka Soomaaliyeed baan qortay waxaan ka mid ahaa raggii guday ka qayb galay dagaalkeedii 77kii. Jeelle Qaasim markii ay dawladdii dhacday kama uusan tegin Garowe, waxa uu sii watay noloshiisii inkastoo ay meeshii ka baxday hogaankii iyo haybadii qarannimo ee lagu cisayn jiray, isla markaana ay isaga iyo carruurtiisii mijo ka noqdeen magaaladii ay madaxda sare ka ahaayeen. waxa uu muddo kooban la soo shaqeeyay mar dambe maamulkii ugu horeeyay ee Puntland, iyadoo uu madaxweynihii xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf kala talin jiray dhinaca ciidamada bacdama uu Jeelle ahaa sarkaal dhinaca ciidankana ku xeel dheer. balse markii uu Cabdullaahi u soo wareegay dhinacan iyo Muqdisho iyo federaalka, waxa uu bilaabay Jeelle shaqo uu u arkayay in uusan u qalmin iyo in uu dhirta madaxtooyadii uu la taliyaha ka waraabiyo. sidoo kalena goobo kale oo ay maamuladii dambe u xil saareen dhir waraabin ayuu noloshiisa ka maareyn jiray. goobaha uu waraabiyo oo dhirta ay ku beeran tahay ee dawladdu ay leedahay waxaa ka mid ah hortayda beertaas ku taalla aad u jeedaan beertaas aan ku yar dhawaado uu waraabin jiray aan iraade inta aan shaqadan laga ruqsayn ama laga ceydin waraabinta dhirta. beertan ayaa ka mid ah oo ka mid ah beeraha ay dawladdu leedahay ama goobaha dhiraynta ee dawladdu ay leedahay ayaa ka mid ah meelaha uu Jeelle waraabin jiray. degmada Burtile oo markaa la magacaabay 22 bishii Juun 1984 baa la keenay adiga ilaa Xasan iyo Bar ma degmada xukumaay. wixii ka dambeeyay Islaam Maxamed Allahu narisad waa dhintay ba Sayid Maxamed Siyaad Bar wada hadlay degmada Xudur. degmada waxaan ku soo wareegay Garowe baan ku soo wareegay ilaa dhicitaankii kacaanka Soomaaliya waxaan xukumayay degmada Garowe. intaas wixii maamul aan soo maray taariikh nololeedkii bay ahayd. wixii ka dambeeyay Puntland baa la dhisay. Cabdullaahi Yuusuf baa madax ka noqday 98dii asagana la shaqeynayay. isagaa ii yeeray madaxtooyadan tagay anigoo darajadeeda ciidanimo ku shaqeynaya kabtaan ah baa halkaas tagay
ilaa muddo asaga madaxweyne qaranka noqdo ee hamar u gudbo halkaas asaga kala shaqeynaya markii maamul goboleedkii isbedelay aniga waxaan noqday in farsamo yaqaan gacantayda ku shaqaysto waxaan bilaabay in dhirta madaxtooyada iyo bangiga beero habeeyo diyaariyo markaa kadibna madaxtooyadii aad la taliyaha ka ahayd baad beeraheeda beeraheedii aad waraabinaysa baan waraabinayay oo dhirtii baan abuuray intii baa mushaarkay marka isugu yimid kolkii dambe madaxtooyadii yaa ka wareegay meesha bangigaan tagay adigu ilaa muddo dhowr sano ah bangigaan ka shaqaynayay maxaa ka qabanaysa oo dhirtan waraabinaya maraan beero iyo maraan waraabi ahay dhirta bangiga 43 qof oo markaa la rusqeeyey baa ligu daray oo la yidhi dee gurigaaga markaas ka tag oo wax xuquuqana aan lagu sheegin wax xuquuqana leema sin mana la ii sheegin jeello waxa uu ahaa nin xilligiisii ku adadkaa sarreynta sharciga oo aan ogolaan jirin in awoodda dowladda loo adeegsado rayidka sida ay sheegayaan dadkii waaye joogga ahaa waxaana jirtay oraah u cambaxday xilliyadaas oo ahayd ama jeelo raac ama jeelka aad shakhsiyadiisu shakhsiyad wanaagsan bay nin wanaagsan oo shakhsiyadiisu fiican tahay oo dhaqan wanaagsan leh buu ahaa sidaa isagoo ku jira oo dhaqan wanaagsan ku jira hadda waxaa la yidhi ama jeello raac ama jeelka aad waa sharciga ama raac ama jeelka aad marka taariikhdaasaa anu ku oqin waxa uu hadda ku nool yahay isaga iyo carruurta uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleenba xayaato aad u hoosaysa waxaana u sii dheer xanuunno uu ka qaaday xaaladihii kala murugsanaa ee uu wajahayay tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii uu xubinta firfircoon ka ahaa ee militariga laba guri waaweyn baan ku jiray markii dowladda Soomaaliya mid WHO baa la siiyey caafimaadka adduunka la siiyey kii dambe ii haray kii dambena hadda markii dambe waa laga soo saaray yaa ku siiyey dowladdii baa siisay oo anigaaba wax ku xukumahay marka de xukunka markuu dhammaaday guriga hadii mid baan wareejiyey kii labaana kolkii dambe waxaa la yidhi waa loo baahan yahay soo wareeji waxaa jirtay in islaan allah u naxariistay islaan maxamed islaan muuse ku yiri weligaa lagaa saari maayo arrintaas maxamed iyo suldaanka hadda waa nool yahay allah naxariisto Saciid Garaas meesha ugu yimaadeen carruurteedii waxay arkeen anigoo meesha joogno way yidhahdeen gurigan weligaa waa iska deganaanaysaa wax kaa saari kara ma jiraan allah naxariisto islaanka waaba dhintay islaanka markuu dhintay war baa ka noqon isaga soo baxbaa leer guriga dhul malihi guri malihi boos malihi buushka arkaysaan guriin idiin muuqdaan baa deganay maanta jeello waa nin mutacalim ah oo dhinacyo badan looga faa'iidaysan karo waqti xaadirkan sida aan ka eegay dukumiintiyo uu ila wadaagay oo weli uu xasuus u haysto waxa uu khibrad maamulka ka helay meelo badan oo ay dowladdii kacaanku u beddeshay oo uu ka soo shaqeeyey sidoo kalena waa tababare baanda muusigada ah oo dhinacaasna looga faa'iidaysan karo si kastoo ay ahaataba jeello waa aabba Soomaaliyeed oo soo shaqeeyey oo mudan in gacan naxariis loo fidiyo isaga iyo qoyskiisaba maxamuud soo faysana warbaahinta qaranka muqdisho